bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal kusoo dhawaada bejka youtube-ka ee shabeelle janal oo warar warbixino iyo barnaamijyo xiliyadan oo kale aad kala socotaan iminkan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka qodobada idinkuga hayna waxaa ka mid noqon doona hogaamiyaha jabhadda onlef oo markaasi sheegay in magaca ogaadeynaya ay ka tanaasulayaan haddii markaasi la helo haddii markaasi la arko maslaxadda shacabka soomaaliyeed waxaan kaloo barnaamijka kusoo qaadan doonaa intaynu ku guda jirno ma dhabba in heshiis qarsoodi ah ay wada galeen dowladda federaalka ee soomaaliya iyo weliba al-shabaab yaa heshiiskaasi la galay shabaab barnaamijka ayaynu ku eegi doonaa waxaan kaloo barnaamijka kusoo qaadan doonaa inta aynu ku guda jirno shariif xasan sheekh aadan oo markii ugu horreysay ka hadlay khilaafka dowladda federaalka iyo weliba maamul goboleedyada muxuu sheegay barnaamijka aynu kusoo qaadanaa waa mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka wararka taariikhdu waxay ku beegan tahay 25 bisha Oktoobar sanadku waa 2019 aynu gudagalna barnaamijka oo faahfaahsan iyo weliba warbixinta ugu horreysa hogaamiyaha jabhadda onlef admiraal maxamed cusmaan ayaa sheegay in magaca ogaadeynaya ay ka tanaasulayaan haddii loo arko maslaxadda shacabka soomaaliyeed isaga oo tilmaamay in muhiimad ay u tahay oo keliya rabitaanka dadka isaga oo la hadlayay odayaasha dhaqanka ayuu soo bandhigay halka ay marayso halgankii ay ugu jireen siday u xoreyn lahaayeen ismaamulka soomaalida oo ku hoos nool dowladda federaalka ee Itoobiya haddii aad odayaasha dalka tihiin soo dooda soo kala rogroga magaca aad isleedihiin ummadda waa uu midaynaya oo dadka iyo dalka maslaxad ayuu u keenaya isaga oo subaxa dambe aynu ku dhawaaqayno oo aynu qaadanayno qabiil ogaadeynaya la dhaho wax dan ah aynu ka leenahay ma jirto soomaalida oo dhan ayaa ehelkeen ah iyaga ayaynu u dagaalamaynay ayuu yidhi admiraal maxamed cusmaan si kastaba haatee onlef ayaa hubka iska dhigtay waxayse heshiis la gaartay dowladda Itoobiya iyadoo isbeddel si dardar leh ku dhacay ugu yimid markii talada dalka Itoobiya uu la wareegay abiy axmed waata qayb hore barnaamijkeenu ku guda jirnaa qodobka xiga ee barnaamijka ayaynu eegaynaa waxa uuna markaasi noqon doonaa madaxweynaha hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa markaas waxa uu ka hadlay khilaafka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada isaga oo sheegay in intii xilka uu ka soo hayay Soomaaliya waa gudoomiyay baarlamaanka ilaa intii ka dambeysay uu dalka Soomaaliya waxyaabo fara badan uu ka qabtay waatan waraysi amuurtaasi ku saabsan isaga oo ka hadlaya waxa uu qabtay iyo weliba waxa uu isleeyahay waa qabatay waa kan أنا قبطان آمنسنا لكن وحي لي آمنسينها يا مر والب دتك موقتها أديك محباس سو آمنسنتها دتك محباك آمنسينها أنا وحنا سو استعنين عن دولتي كميل جارك أنا شغوين بدن كسوق قبتي إن كستو وقت عريري واسك بدن وأبني جي نغاله هي وحي واسك اسكيهين كقدومي برنامج لو جرى النقطة وزير أنصار النقطة marka waxaan isleeyahay dalka sidii uu nabad iyo Soomaalinimo iyo dimuqraadiyad iyo federalismka sidii loo shaqeyn lahaa in wax badan ka soo qabtaan aaminsanahay marka dalka Soomaaliya dagaalada sokeeye ayaa ragaadeeyay marka heshiisyadii la gaaray kuleena ka soo shaqeynay oo si uun Soomaali isbedelka doorashooyinka iyo Soomaaliya markii hore dawladda waxa lagu dhisi jiray markii Djibouti lagu dhisay Kenya lagu dhisay mar labaad Djibouti lagu dhisay markii kale in Muqdisho lagu dhiso geedi socodkaasiga aniga wax badan baan dadkii wax badan ka ogaayo ama wax badan ka soo shaqeeyay baan ahay oo shaqooyin badan ka soo qabtay marka in gudaha la isku doorto doorashada Muqdisho la isku doorto gorowan iyo gorowtu iyo kale shaqooyinkaas shaqooyin badan ka soo qabtay dadka Soomaaliyeed doorasho ay heshiis ku yihiin oo ninka banaanka joogay kan gudaha jooga inta ba fursad siinayso in laga shaqeeyo wax heshiis lagu yahay la isku doorto wax badan ka soo qabtay ana gudoomiye baarlamaana tii u dambeysay hadana anigoo oo maamulka koonfur galbeed madaxweyne ka ah ayadana doorasho sidaas oo kale oo dadban oo mid leesla dadka midka gudaha ku jiriyo midka banaanka jooga fursadooda isku si ay noqonayso ayadana shaqooyin badan ka soo qabanay marka Soomaaliya inay dimuqraadiyad u gudubto oo ninka kala qoray isku dhiibay noqoto doorashooyin la doorto oo markii nin walba ka dhamaato fursad waqtigiisa oo lahaa mandate kale oo doorasho ay dhacdo in shaqooyin badan ka soo qabtay baan aaminsanahay intii la soo dhaafay doorashooyinka isku xigay waxa hadda intii aad iska casishay xilka madaxweynenimadii aad haysay muddo sanad ku dhow hadda ayaa laga joogaa waxaa jira su'aal ku soo laabata dadka oo in badan aan aaminsan inay isweydiinayaan ka fariisada ama casilaada aad iska casishay xilka ma loo fasiran karaa Shariif Xasan guud ahaan siyaasadda Soomaaliyeed oo faraha kala baxo oo iska dhiga siyaasadda dhinac uga bax
lama dhihi karo siyaasaddu marna waxa waa la xil waa la iska casilaa kadibna haddana mar kalena haddiiba fursad la heli karo waa la raadiyaa marka lama dhihi karo in siyaasaddii waa laga baxay lama dhihi karo waxay ku xiran tahay fursadaha soo socda si aan wax uga helo laakiin hadda aniga rajadeedu waxay tahay inaanba weliba uun jagada hadda aan hayay jaga ka weyn aan raadiyo haddii ilaahay idmo aan kaga soo gudubno inta Shariif Xasan waxaa in badan soo laalaabato oo jirta caqabado ama khilaafaad u dhexeeya dowladda dhexe ee dalka federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka dhisan siyaasi muddo dheer khibrad u leh oo soo ogaawata maxaad isdhihi kartaa caqabadahan khilaafaadkan salku ay ku hayaan oo sabab ay u tahay la doorto maadaama anigan maamul haddaan hogaamiye u ahaa markii khilaafaadka ay jireen mar walba aniga waxaan gardari doonaa dowladda dhexe sababtoo ah dowladda dhexe waxaa laga rabaa dadka Soomaaliyeed federalism ay qaateen federaalka ay qaateen maamulada waxaa la rabaa in caasimada kaliya oo isku maamulo waa lagu soo dhibtooday dadka Soomaaliyeed waxay qaateen in federaal noqdaan maamul goboleedyada in loo gudbiyo horumarka iyo dib u dhiska iyo waxbarashada iyo wax walba in hoos loo daadajiyo maamuladuna ayagana hoos u daadajiyaan degmooyinka iyo tuulooyinka ay geeyaan marka sidaas darteed marka dowladda dhexe ani waxay la muuqataa inay weli ay rabto inay dowlad oo kaligeed ah dowlad dhexe oo aan federaal ahayn inay rabaan especially dadka hadda maamulka hayo sababtoo ah ma ogola in maamuladu wixii xuquuq ay u lahaayeen haddaan ka soo qaado doorashooyinka ayaga xaq u leh inay constitutionkooda isku doortaan dowladda dhexe waxay ku leedahay ayada inay kor ka ogaato ee xaaladahooda ay kor kala socoto laakiin haddii ay rabto inay midna bedesho midna keento sidii gobernatoor inay magacaabayso oo kale u fikirayso ana waxaan is leeyahay khilaafaadka meelaha ka imaanaya meelahaas ugu weyn faragelin xoog leh oo aan loo baahnayn oo federalismka ka hor imaanaya nabadda ka hor imaanaya horumarinta ka hor imaanaysa ayaa dowladda dhexe wada markaan kasoo tagno in dadka maamulka haya ama hogaamiyaasha marka xilka gacanta ku haya ay qayb ka yihiin caqabadahan soo laabtay ma isdhihi karnaa waxaa jira nidaamka federalismka sidaan u qaadanay iyo sida loo dhaqan gelinayo lafteeda caqabadahaas qayb bay ka ciyaaraan inay caqabadaha soo laabto oo xal joogtana dee aan weli loo helin والله لما دي كر سببته هو حد وحبا قرن حد انتي قرن إن لو الصعدة هذانا كوي ويها قبل نقضاء أيضا لسخلافنا هذانا حبك الله رغم كر الجاري كر لكن هديو ليه قف نين أنا عن ربما ماشان هي ما دوم وقت ونليه باور دولتين وذيك سنة قلب جيس قف وجري كرا لكن حقه ملا إنه يرادو هبل إن لدارته حقه ملا سيجا مركا أنا وحي موقته وحيالله هذا الدعاء والرجادين ومد الصوماليات ورمركو دي جارهم فدراليزم dowladda dhexe dadka maamulka hay ayaa wada sidaad xilka isugu casishay aan dib ugu soo laabano markii aad xilka iska casilaysay casilada aad iska casishay ama xilka aad iska dhiibtay waxaa dadka in badan ay isweydiinayaan oo aan rabnaa lafteena inaan ogaano ma go'aan adiga ka soo go'o aha mise cadaadis dhinacyo kale oo siyaasadeed ay kugu saareen oo xilka aad iskaga dhiibtay jiray ma aniga cadaadis qof hadda meel cadaadis iga saaran ma jirin laakiin waxa socday ayaa waxa ii soo baxday in waxyaalaha aniga aanan ku faraxsanayn oo badan ay ku dhex jiraan meeshana aadeedii iyo aniga iska lahaana mas'uuliyad markaas hayay marka fargelin xoog leh oo hadda markaas anigana aanan awood aniga kaga hortaga aanan lahayn ayaa socotay saas darteed meeshana dhibaato ka dhacdo oo la isku dilo oo dhib ka dhaco ayaa anigu dareenkayga u noqday sidii isdulkaas iyo dhibaatooyinkaas loo joojin lahaana markii aan dowladda dhexe tala u sheegay arrinteeda way la qaadan waayeen saas darteed marka aniga in meesha in la isku dilo haddii ay tahay inaan anigu dilkaas aanan ka qayb qaadanin ayaan go-aankaygu dhib baad ka hortagaysa dabcan waxaad noo iftiimisaa waxaad noo sheegtay in faragelin ay jirtay oo sida ay qayb ka ahayd in si ayna xaalad usii xumaanin ma noo iftiimin kartaa faragelinta dhinacyada ay ka soconaysay walaadi adiga inaanay afkayga ka maqashada horta moogay qof mooginuusan jirin ma malaynayo waxaa u yaroo la sameeyey in maamulka maamul jiro madaxweyne leh oo wasiiro leh oo dhawaano leh ayuu ahaa dhawaanada waqti sanad ah u dhinaa marka in dhawaanadii kulligood xamar loo rabo dowladda ay rarto iyadoo oo ku loo bangareyn karto inay magaalada gudaheeda ay ayagoo joogaan magaalada Baydhabo inta lagu loo bangareeyo qofkii la rabo hataa wixii la rabo loo sheego ayaa xeer waxaana gaarsiiyeen dhawaanada kulligood la raro marka fargelin ka weyn hadda aniga anoo meel kale baaday fargelin ka weyn ma jirto marka ninkii dhawaanada raray oo xamar geeyay oo dowladiina oo waliba isqarinaynin
markaas kadib haddana ciidamo soo wado oo markii meesha dagaal ku wado nin musharaxa oo leh oo asiga markii hore hataa uu siyaalo badan kale haddii hataa inuusan issharaxin ay qabaan ay siyaalo badan ula hadli kareen ama ka joojin kareen nin musharaxa oo taagan oo muwaadana oo in la doorto xaq u leh in wax doorto xaq u leh ay leeyihiin isma sharxi kartid ma joogi kartid marka ani sababahaas markaan isku dardaray baa waxay soo baxday waxa hadda ka dhacay meesha inay ka dhici doonaan waxa hadda ka dhacayna wax aada u foorxun ay ahayn sababtoo ah dad Soomaali oo waxba galabsan in meesha lagu dilo oo qof Soomaali oo musharaxa oo siyaalo badan loo xeerin karo haddii hata musharaxnimada in laga joojiyo la rabo si badan loola tashan karo in meesha la xiro oo dhibaato loo geysto oo ciidamo kale loo adeegsado marka aniga mushkilooyinkaas aan arkay mushkilooyinkaas markaan arkeen waxay la noqotay inaan qayb waata dawlad dhageystayaal soo gaarnay qodobka ugu dambeeyay ee barnaamijkan ku soo qaadan lahayn waxa uu markaasi noqonayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay heshiis afgarad ah la gashay kooxda al-shabaab sida ay xaqiijinayaan dhowr ilo wareedyo oo arrintaas soo tabinaya qadar oo ah dalka xiriir la leh argagixisada ayaa door weyn ka ciyaaray heshiiska lala saxiixday markaas al-shabaab oo ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay warbixinada qeexayaan heshiiskan oo dhowr qodob ayaa waxaa ka mid ah in markaasi qaraxyo aysan ka dhicin caasimada Soomaaliya sanadka 2020 qorshahan oo qayb ka ah ajendayaasha doorashada farmaajo ee markaasi codeynta aadka isha loogu hayo lana filayo in ay noqoto qof iyo cod dhanka xukuumadda waxa uu saxay Fahad Yaasiin taliyaha NISA kaasi oo isagu matalayay xukuumadda Dooxa Fahad ayaa sargaal ka tirsan sirdoonka Qadar ayaa ah ninka ugu awoodda badan dowladda farmaajo dhaqaalana ku bixiyay doorashada sanadka 2017 ka dhacday caasimada Soomaaliya ee Muqdisho gudaantaas ku soo gabagabeynaya barnaamijka dhacdooyinka tan dib kulmana barnaamijkan mid lamida waxaan idinkaga tagayaa sidaas inad galo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.